xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba ayaa doorashadaasi ku tilmaamay mid guul u soo hoysay qaranka Soomaaliland isla markaana lacagta ku baxday doorashadaasi iyo culayskii ay lahayd labada doorasho ee isku sidkan ay Soomaaliland dhabarka u ridatay allana ku guuleeyay isaga oo si gaar ah ugu mahadnaqay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudida doorashooyinka ciidamada booliska shaqaalihii ka qayb qaatay iyo shacabka Soomaaliland doorashada 11 May dalkeena ugu qabsoontay inaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba aan hambaliyo halkan uga diro gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhiiraday in uu laba doorasho oo isku lamaan beesha caalamka iyo cid kale oo ka caawisay dhaqaalahaana aanay jirin uu bareeray in xukuumaddu kharashaadkeedii hawsheedii iyo arrimaheedii amniga iyo diyaar garowgeedii ay qabato xukuumaddu madaxweynuhu arrintaas ku dhiiraday aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa guul taariikhiina way noqotay oo Soomaaliland gaadhay beesha caalamka iyo goobjoogayaasha caalamka ee yimidna ay qireen inay ahayd doorasho xor ah oo xalaal ah bulshada reer Soomaaliland laftirkeeduna ay aad ula socotay in badanna ay ka dhagsanayeen ilaa maantana aad ka warayso in ay qirayaan oo sheegayaan inay ahayd doorashadii ugu hufnayd ee qarankan soo martay hambaliyadaas waxa la leh madaxweynaha dhammaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee amniga sugay waxa kale oo la leh dhammaan shaqaalihii komishiga doorashooyinka qaranka ee kala duwanaa iyo ardayda jaamacadaha ay ka shaqeynaysay sidoo kale waxa hambaliyada la leh bulshaweyntii sida mugale ugu soo baxay safafka iyo maalintii codbixinta inay cadceed u taagnaadaan u samraan buuq la'aan iyo rabash la'aan ay ku codayaan dhammaantoodba hambaliyaan la soo koobi karin halkan u marinaya dhinaca kale xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba ayaa sheegay in dadka reer Soomaaliland doorashada u galeen si qiimo leh balse aan xilligan loo baahnayn in tacabkii shacabka hab qabyaaladeed loogu bedelo baraha bulshada isaga oo sheegay in mudanayaashii guuleystay ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada lagu dhaarinayo in si cadaalad ah ay ugu shaqeynayaan qarankooda iyo deegaanadooda balse aanay matali doonin qabiil iyo cid gaar ah oo soo dooratay xubinta golaha deegaanka soo baxda waxay matashaa degmada ma matasho qabiil qolada ma matasho bariyahan dambe waxaad moodaysaa intii hore in si qurux badan doorashada noogu socotay laakiin in markii doorashada dhamaatay natiijooyinkii hordhaca lagu dhawaaqay social media ay si xun loo adeegsaday oo laga dhigay qabyaalad laga dhigay loo bedelay oo reer laga dhigay waxaan idin sheegayaa xubinta golaha deegaanka reerkiina inaad daacad u tahay u shaqeynayso lagu dhaarin maayo waxa lagu dhaariyaa waxa weeyaan dhaarta dastuuriga ah ee qaranku tilmaamay degmadiisa iyo dadkiisa inuu daacad u yahay iyo dalkiisaba oo si siman iyo cadaaladna ugu shaqeynayo sidoo kalena golaha wakiilada xildhibaanada soo baxay 82 ah gobolka ka soo baxeen oo kaliya matalaan dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan bay matalaan waxaana lagu dhaarinayaa iyaga laftirkooda dhaarta dastuuriga ah waxaanay matalayaan bulshada reer Soomaaliland daraf ilaa daraf sadraadeed waxaan u soo jeedin lahaa in ay cunsuriyada iyo qabyaalada iyo reer hebelnimada social media si xun u haysata ay ka daayeen doorasho fiican baa noo dhacday doorashada inaan xajin loo yeelin inaan la fool xumayn marka dhalinyarada social media isticmaalaysa markii hore campaignada ay ka isticmaalayeen campaignka xildhibaankii doonayaan ugu ololeynayeen si fiican bay u socotay laakiin imika intii dambe doorasho dhamaatay natiijada hore ay lagu dhawaaqay waxa mid ah isbedel fool xun inuu social media isu bedelay waan uga digayaa waxaan leeyahay doorashada quruxda badneed ee noo dhacday hay naga xumaynina Muna Ibraahim Dhakhtar warbaahinta qaranka Soomaaliland